garashadu hadday ruux la tahay suu garanayo garaadkiisu suu qabo haddii loola garan waayo gardaruu u qaataa ninkii yidhi garaadkiisi xaajadu markay gobo'da iyo gawda culus joogto keligii ninkaa shaantay uu gola ka fuulaa adiga waxa lagu yaqaanaa ninka kelitaliska ah maalinta arrintu halka ugu culus ugu halisaysan marayso ee ay ahayd inta la isu yimaado in la faaqido oo la faguro oo lagu guulo oo lagu dhaxo oo lagu xiqo oo lagu daalo ayaa saa loo soo fadhiisanaya markaas oo waxba hadlina soo arrinta tan iyo ka hadalkeedii xalkeeda ma aha sidaa gola ka fuulka waxa la yiraahdaa waa adigoo imika xaashi halka ka fadhiya leedo waxa lagu xukumay inaad imika gabay tiriso aad imika alifto dabadeedna waxa ka soo dhiiqay uu yiraahdaa waa waxaan xur yeelanay de waa nin cunaa la qabtay ama sida yeelama sida yeeliyo wax waliba ku talagal bay ku qabsoomaane waxa weeyaan kelitaliska waxa lagu yaqaanaa had iyo goor wuxuu soo jeediyaa talooyin aan laga fakirin oo la shiilin oo la tijaabin oo had iyo goor wixii soo wuxuu yiraahdaa si fududo maaragtay hadhowna isbixin weyda mugti xaajadu markay gobo'da iyo gawda culus joogto keligii nin gaashaantay uu gola ka fuula si fudud uu isaga yiraahdaa talada hadalka uu yiraahdaa gadaashiisa baa durbaan laga garaacay labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelaya kelitaliska nin ma ogolan yiraahdo waynu gudboonahay aan iska barbartaago waa inuu nin waliba xagga dambe durbaanada la tumayo iyo waa inuu xagga dambe uu ka maqlayaa laakiin de ma ogola dhinacan iyo dhinacan cid barbartimaata gadaashiisa baa durbaan laga garaacay labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelayaay arrin lama guule ee warkuu gura yiraahday dadka wuxuu u gacan haadiyaa qof iyo gaarkiisi gogol wuu ku shaashoonayaa loo gudboon yahay gendi iyo dhukaan buu qabaa cudurro guumeydee sida guray fallaagoobay buu gooni joog yahay kol hadduu nin mawd lagu gudbaday tiisa uga guuro xil uunbuu guddoontay ka bayl gudashadiisii seetada nin goostaba wuxuu geysta lala yaabi afrika waxay ku cuntahay marka ninkii taga ee xididayste ee meel walba haddii ilaahay ka dhigo maaragtay uu haddii ilaahay ka dhigo lug gashado ay ruuxruuxidiisa iyo gilgilidiisu adkaato markaasuunbay isku waafaqdaa inuu xun yahay intaa uu dhow yahay ama uu wax laga qaban karo ee ay fududahay waxyeelidiisa iyo rididiisa intuba heshiiskuma aho inta iyadu murmaysa midna leeyahay waa wanaagsan midna leeyahay waa xun yahay ayuu jiidanayaa tegayaayo maalin wax ka qabashadiisu ay aad u adag tahay ayaa la isku raacayaa inuu ninku khariban yahay seetada nin goostaba wuxuu geysta lala yaabiyay garaayocuunkii nin hadduu tashiga guurta faran kari ganaanaysto inteenan maanta halkan fadhido oo talo wada leh oo la yiraahdo talada ummadda intiinaasaa wadaaga bal ka warrama waan idhaahdo haddaba intiinu iska hurda taga oo intii laynoo wada diray anaa ku filane waa mahadsantihiin aniga uniga warsuga nin hadduu tashiga guurta faran kari ganaanaysto garaayocuunkii iyo shinnida guruuciya dhaadheerta giriyaalayaashiyo fulaha laguma guuraanka gumarta iyo maajeenta iyo geedxunka iyo tuugga gungunaafka iyo maarta iyo gocorka aan quudhin kunin oo guraangura hadduu goob isugu keeno guufkiiyo haddii hooda iyo giniga loo qaybsho dadka kale intii gudan haddii gararka loo jiido gubaabadeedii haddii loogu godadleeyo hadallada galoofta ah haddii loogu malagaaxsho gurya noqoshadeedii haddii lagu gawaan raacsho gabaldaye sidiisii hadday laba gardaymooto shimbiraha gabraatiya hadday galow wax weydiiso kol hadday galaydh soo kallahay laabta uga guuxdo garbaraar cadhaysanay hadduu gooyo taladeeda guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin waxaa lagu yaqaanaa kelitaliska ummadda markuu dhex galo ishuu saa u mariyaado inta aan hadalkiisa waxba ka soo celinayn inta markuu hadlayo hoos wax weegaysa inta ama hunguri ama kursi ama magac u xilanaysa darajo intaasunbuu xilka u dhiibtaa intaasuu urursadaa dabadeedna inta wax garatana xadhiguun baa loo jiidaa intaasubaa daba yaacda uun xaqiiqa iyo wax dhacay oo maaragtay dee jiro ruun aan arkay baa ilaa maxamed siyaad barre
ka shalay jirana uu gabaygu ku saabsan yahay mid maanta jirada uu ku saabsan yahay bacdi waxa weeye si fuuma ficilun buu gabaygu ka hadlayaa qof hebel la yiraahdo ka hadlo ficilka wixii la yimaado uu ayuu ku saabsan yahay dabadeed inta markuu sameeyo dadka marba intuu shiriya uu si yar oo fudud wax ugu sheegaya waayo wuxuu yaqaan gol dalooladeeda oo si yar oo fudud buu u qancinaya wuxuu leeyahay oo moogtiin sida ay asaas baynu sameeynaa berito in hadii la ka dusayna dabeetana halkii baynu galayna dabeetana waa khalaas berito markay beenowdana wuxuu leeyahay waan yeeli lahaay soo hebel iyo hebel soo kuwani ima haystaan faraqa iyo dacalada iyo dhinacu kama aan dhaqaaqi waay maalin bashanta oo isaado waxay karteen ayuu dadka ku reebaya dadkiina kuwiina ku jeesanayay lagu garanaya inay ku jeesanayaan iyagu ma qiimeyn karayaan qaldan iyo xaq u qaladku ka jira inta la isku jeedaa buu isageena maar ayuu dhaqaaqaya